العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay inaan idinla wadaago biidn illaahi tacaala dhibaatada haysata ilmaha qaangaarka ahaa 5 qodob oo ka mid aha iyo 5 xal inaan idinla wadaaga ayaan doonaya. sababta aan idinla wadaagaya ma garan, sababtu waxay tahay waxaan ku jiraa waqti qaangaarkii iyo dadkii tarbiyeynayay ay khaatuma billahi kala taagan yihiin. waxaan ku jiraa waqtigii casrigii tarbiyada, lianna adduunkii oo dhan ayaa hal qaarad noqday. sidaa darteed baa waxaa muhiim aha inaan ogaano waxa mashakilada ku ahaa ilmaheena qaangaarka. 5 sababood ee dhibaatada ku ahaa. qodobka ugu horreeya wuxuu yahay waxaa maqan oo booska ka baxay wada sheekaysi dhexmara waalidka iyo ilmihiisa. qodobka labaad waxa weeyaan waalidkii oo ilmaha ku adag oo ku qalbi adag ama ku jiricsan oo maaragtay wax alla wuxuu rabo u sameynayo, iyaduna waa mushkilo kale wey. qodobka saddexaad kale waa maxay? ilmaha oo markii uu yaraa 7 sano hore iyo 7 sano ku xigtay ayadana aan ilmihii wax wanaagsan aan la barin oo qofkii isaga ahaa wax ku goosto. qodobka kale afraadna wuxuu yahay waalidka iyo ilmuhu way wada dhaqmaan, laakiin ma jiro wax ilmihii iyo waalidku maaragta ay ka wada shaqeeyaan. macnaheedu waa maxay? ma jirto hadaf labadooda dhex maraya oo ilmahan kadaata loo jahaynayo oo meel loo socdo iyo wax laga wada shaqeeya ma jiraan. qodobka shanaadna waa maxay? waxaan jirin wax la yidhaahdo oo meesha ka baxay ku dayasho. ilmahan ma jiraan cid ay ku daydaan ma jirto, ama guriga ha ahaato ama ha ahaato maaragtay in lagu xidho asxaabtii iyo ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa iyo role model ilmahan uu leeyahay ma jiro. 5taa qodob waxay ka qayb qaadanayaan ilmuhu inuu wareero, meeluu u socdo iyo meel u socdoba inuu garan waayo. haddaba su-aal, dhibaatada markaan ogaaday seen ku xalliyaa? 5tan qodobna waxay kamid yihiin waa xal ayagana lagu xallin kara dhibaatada qayb kamid ah. sababka ugu horeeya ee waalidka laga rabo markuu doonayo in uu maaragtay xalliyo ilmihiisa dhibaatadiisa, horta waa inuu fahmo ilmihiisu waa noocee. ilmahaagu waa noocee? maxaan ka wadaa? bini aadamku 3 qaybood oo qaybsamaan. qof waxaa la dhahaa waa qof basari baa la dhahaa, qofna waxaa la dhahaa samci baa la yidhaahdaa, qofna waxaa la yidhaahdaa xisi baa la dhahaa. maxaa laga wadaa 3daa qof? waxaa laga wadaa qof isaga aha basari waa maxay? ilmuhu waxa weeye waa midka waxaad ku garanaysaa waa ilmaha dhaqaaqa badan weeye, hadalka dejinaya ee maaragtay aan daqiiqadiiba doonaya intaasoo inuu hadlo. samciguna waa kee? waa ilmaha doonaya inuu maaragtay fahmo waxa loo sheegayo, waxa uu ka faa'iidayo. xisiguna waa ilmaha dareenka badan ee jawaabta ku daahaya ee shucuurtu ka badan yahay. inaan fahna ayaan u baahannahay. qodobka labaad kale waa maxay? waa in la dhiso weeye, in ay waalidki ulfa waxa la dhaho, ilmihii iyo waalidku maaragtay inay isu dhawaadaan. xaggee isooga dhawaanayaan? inay isooga dhawaadaan naf ahaan, inay isu dhawaadaan jir ahaanna, inay isu dhawaadaan hadallada waalidku ilmihiisa kula hadlaya inay isu dhawaadaan, cod ahaanna inay isugu dhawaadaan asagoo kula hadlaya noocyada kale ilmihiisu ay kala yihiin. ulfa waa in la helo. waalidku ilmihiisa waxaa loo baahan yahay in uu soo dhawo, hadal macaan kula hadlo, inuu jecel yahay u sheego. waalidku ilmihiisa wuxuu u baahan yahay in uu soo dhaweeyo oo maaragtay iyadana maaragtay ilmihiisa iyo waalidku ay isdhex galan ayaa loo baahan yahay. qodobka kale ee aada muhiimka u ahaa isagana labaad ee waalidka laga rabo weeye in qodobka saddexaad aan dhehe ee wax lagu xalinaya waa maxay? waa inay jiraan ilmaha wax atargiib watarhiib. atargiib watarhiib maxaa laga wadaa? waa inay jirto amal. ilmaha waa in loo sameeyo rajo, waa in la tuso weeye ilmahan kadaata wax uu ka shaqeeyo oo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba wax u taraya. ilmaha in loo sameeyo oo laga tuso adduunyadii iyo aakhiraba wax uu sameynaya loo baahan yahay. sidoo kale ilmaha waa in loo tuso waxyaaba oo maaragtay xumaanta cabsigelin in lagu sameeyo oo wadooyinka qayb kamid ah tuso ka dhaxan dhibaato inay ku dhacayso, ayadana waa in loo sheego. labada qodob kale markaan ka hadli doonaa. jazakum allahu khayran jaziilan. ilahay waxaan ka baryaya inuu inagu anfaco dhammaantayna. waxaan rajeynaya biidn illahi tacaala inaan ka faa'idaysano. qof kastoo waxaan rabaa wixii aad ka barata cashirka asaga inad buug iyo qalin qaato oo qorato. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.